dhegaystayaal sidaad ku maqasheen barnaamijkii kan ka horreeyey culimmadii hore ee Soomaalida kuwoodii cilmiga badan uu magacoodu ku dheeraaday waxay yeelan jireen xarumo meelo fog laga soo tamadiyo ayna ka soo buuxsami jireen dhalinyaro aqoon doon ah oo wadar ahaantooda xer loo yiqiin dadweynaha deegaanka ayaa dhalinyaradaas xagga dhaqaalaha ka kaalmeyn jiray iyaga oo u keeni jiray xoolo nool oo saddexda meesiba lahaa xoolo dadkii bixinaya ay sadaqa ula jeedeen xertuna ay nolol ka dhigan jirtay xoolo xareed ama xoolo dariiqo ayaa lagu magacaabi jiray inkastoo ay tarmaan oo tiro badnaadaanna caamadii Soomaalidu siday u badnayd uma hunguroon jirinoo intay ku duusho ma soo dhici jirin habaarka wadaadadii iska lahaa ayay aad uga baqi jireen ha yeeshee waxaa jiray nin ka bayray xeerka ay bulshada Soomaalidu wada ogobanayd habaarka wadaadada ee la sheego ciddii ay ku halgaadaan in aanay la gafin nin aan dan ka geli jirin nin dhaca caamada iyo kan culimadu ay isaga sooran u ahaayeen waa nin caan ah oo haddii magaciisa la soo qaado ay u dhowdahay waayeelku inuu wada garto waxaan u jeedaa Cali Aadan Gurayo oo Soomaalidu ay Cali Dhuux ku garan og tahay lafagurayaasha suugaanta Soomaaliduna aysan marna ku murmin maansayahanada heerka koowaad kuwa ugu sii horeeya inuu ka mid yahay wuxuu aad ugu caan baxay silsiladii maanso ee magaca harac dheere taariikhda suugaanta ku gashay kana bilaaban jirtay tix gaabanoo uu tiriyey gabyaagii reer hobyoodka ahaa ee Cali Sharmaarke la oran jiray silsiladaas waxaa isku maandhaafay isuguna hal celiyey maansayahanadii miisaanka culus ee xilligoodii farta lagu fiiqi jiray sida Qamaan Bulxan Sayid Maxamed Faarax Caytame Cali Sharmaarke Gooni Cabdi Xaaji iyo Cali Dhuux oo isaga iyo Qamaan ay si gaar ah isugu fiirsanayeen 10 sano waxaan ka badnayn iyada oo curashadii silsilada laga joogo ayuu Cali Dhuux tiriyey gabayga waayadii dambe gubal la baxay ee silsilada kale ay ka dhalatay maansadeena diradiraha ah gabayga ka tilmaaman ee magaca dheeriga uu bulshada kaga helay isaga qudhiisuna wixii uu maansa tiriyey gabaygii uu ugu jeclaa dabayaaqadii 1950nadii siduu ugu waramay taariikhyahanka Soomaaliyeed Sheekh Jaamac Cumar Ciise jeer ay hawd ku kulmeen gabyaanimada ka sokow muddo dheer buu Cali Dhuux ahaa colwadeen duulaamada abaabuli og dagaalyahan badanaa ammaan duula ah oo dhaca geela haddii uu xilli ka waantoobo aan midka xiga ka ooli jirin kabilna aan wada moogaan jirin taana waxa uu kala mid ahaa raggii ay isku gadaha ahaayeen raggii aaminsanaa geella'aani inay nolol la'aan tahay ayna sharaf la'aan u dhiganto tixii Asban Xasan Dari raggii madaxa u ruuxi jiray markuu lahaa badda jeexaya iyo biriga jaanta mariyaaba waleegeel jacaylkan u qabo wawti rabi ruuxa raggii iyaga oo muslina haddana markay ceelka ka shubayaan hasha ugu heesi jiray salaadiyo suub salaadaa daran suub hadday timi salaad la qalle raggii samatar baxnaan ugu bogay markuu lahaa ari iyo lo'baa lagu baxshaa aana kuu timidee aarlaaga geela ah naftaa lagu ilaashaaye kolay aabbahaa tahay nin kale looma aamino kurayada ay barbaarinayaan lahaanshaha geela markay ku gubaabinayaan raggii dhagaha ugu shubi jiray gooday geesigu geerida horteed gaadasheeyo geel la'aan diid da'daas jacaylka geela maankooda lagu daabacay ayuu Cali Dhuux ka mid ahaa isagase waxaa u dheeraa inuu u bareeri jiray xoolo dariiqo iyo geelal ay xiri lahayd kuwaasoo sidaan soo sheegay ay Soomaalida kala dhacooda ka baqi jirtay inta la hubo 2 jeer ayuu wadaadda meel degan wax ka soo dhacay kana soo moora duugay saka iyo sadaqo si ay ku soo galeenba tuldihii uu dadweynuhu ugu deeqi jiray weliba falka caynkaasa kama uu qoomamoon jirine inuu ku garleeyahay ayaa ka dhacdhacsanayd sidaynu dib ka ogaan doono markii hore waxay ahayd isaga iyo 4 kale iyaga oo geeldoon ah mar ay galbeed u duuleen niman waxay ahaayeen dhalinyaro ah oo isagu uu hormuud u ahaa niman isku dhaarsaday sidii caatabtii ay ugu suura gashaba iyaga oo aan geel wadan inaanay degmadii ku soo noqon dabadeed waxay jar ka dhacaanba goor barqadii ah ay ku soo baxeen geel sodomeeye ah oo qaan iyo curadba leh toon hareeri badanna daaqaya durbadiiba 2 kuray ee la joogtay ayay waraysteen intay cabsiyeen bay haybsi ugu dhaqaaqeen markaas bay isu sheegeenoo cidda ay yihiin iyo meesha ay degmadoodu taal u faahfaahiyeen saymar qura ayay shantoodii isdhugteen saymaraadkoodii bay heleene way isu muusoodeen shawgeelu waa baylaho
rag looga baqaa hareeraha kama taagna show wadaadda dariiqa ah ayaa iska leh oo labada kuray ciidan aan ahayn uma maqna isu baaqis mooye iyaga oo aan wada hadlin ayay geelii horta marsadeen labadii kurayna ku kaxaysteen ileen raacda ka daba timaada kama ay baqayne meel dhexe hadday marayaan oo ay la yara fogaadeen ayay cayradii uga tureen aayar bay sii hawadiyeen wax yar kadibna wiilashiiba inta iska sii daayeen dib iyo reerahoodii isaga direen iyagiina siday hirtiqaskaas ugu wadeen ayay geelii la cidgaleen kolkay qaybsadeenna nin iyo 5 halaad ayay u heleenoo eebbow mahadda ku celceliyeen dhowr cisho kadib ayaa halkuu deganaa waxaa cali dhuux ugu yimid qaar ka mid ah wadaadadii geela lahaa inuu u celiyo xoolahooda ayay ka duraanteen wax walba oo islahaayeen waad ku qancin kartaan ayay codsigooda ku larayeen hase ahaatee cali waa ugu soo loodsami waaye hadba wadaadkii ugu weynaa ayaa kitaab la soo baxa isaga oo ka soo daliilinaya aayadaha iyo xadiisyada tilmaamaya dhaca xoolaha muslimka kale ciribxumada laga dhaxlo maalmo idil ayay halkaa ku sugnaayeenoo marna digri qabsanayeen marna cali iyo kooxdiisa wacdiyayeen wariyayaasha qaarkood siday ku warrameenna wuxuun qalbi jireeca ayaa afartii kale ku soo kordhay markay hayn waayeen tusbaxyadii kutubtii ubooyinkii iyo akhriskii qur-aanka ee inta ay u toosaan ay wadaadadu hameenbarkii ku dheeraysanayeen waxaas oo idilse cali dhuux ma saamayn waxna kama doorin tashigiisii ahaa wadaad kastaa har ahaadee inaanu geelaas tuludna ka celin dabadeedna maalintii u dambaysay ee uu quusinayey ayuu gebiyey marka hore wuxuu wadaadka u sheegay fikraddii uu aaminsanaa ee ahayd ninaan geel lahayn inuu sharaf laawo yahay isagoona aanu la'aantiis ku geli karin hadduu geel tabcan waayo waxaa sugayaa waa magaalooyinka xeebaha ku yaal intuu u dooro inuu gaalka xukumo u shaqeeyo shaahana u kariyo taasoo uu iskala wen yahay sidaa darteed wuxuu ku waaninayaa wacdiga tirada badan inuusan isku xabeebine uu ka nasto marba hadday arrini halkaa isaga ka joogto wuxuu yidhi sharad bay mareen awgayow shanaan u weynaaye ninkaan shiriyo heemaal lahayn sharaf ka dheeraaye karuur shawle caanaha shamaal looma soo shubo shacabkana ma dhaafo oo badduu shaba ku tuurtaaye shuqulka gaalka kama maarmo oo shaahu kariyaaye aniguna shahiid waa waxaan shiiluhu u ridaye shiinkiyo wardiga aad akhriyi shicirku aadaanka waxba hayshirrabin waan arkaa sheekh inaad tahay ugu dambaystiina wuxuu wadaadkii war oo dhan ugu soo gebagabeeyey wadaadow geel aan kuu celiyo mahaaneedi doontide meesha isaga tag anigu isaga iyo dhaqashadiisa mooye hawl kale oo aan garanayaa ma jirto adiguse qur-aan baa taqaano isaga ayaad wax ku heli isaga dartiis reerkii aad ku hoyataaba fadhiga ayuu kaaga kici wanan shilis buu kuu loogi xoolana wuu ku siine halkii aad ka timid ku noqo geel anaa u baahane adiga baahiyi kuma haysee wuxuu yidhi shayb waalan iyo wiil yar baa shaac idiin naqa shan haddaan ka helay maalintii shaaxin sidigteeda caanaha haruubkaan shaqladay sheeme laga buuxshay shukraan noqo shaxaan dhigto iyo shalaqsab mooyaane shaki bay iga galay awgayow inaan shaqeeyaye adigaa shilaabiya yaqaan sheedihii webiye adigay degmadu kuu shirayn wanan la shiilaaye intaad aayar sii shabaxsataan shiiqse garowgaaga tixdaas buu wadaadkii ku quustay kabihiisii buu halhaleel u iladay markaas buu waddadii uu ku yimid dib ugu noqday isaga oo mindhaa afka iyo uurkaba ka habaaramaya dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaaha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo sheeko kale oo duulaamadii cali dhuux ku saabsan isaguna uu tuxihiisii ku waariyey